waxaa ilaahayna hadiya maanta naqshad baan samaynay waxaa aan daafuray waxay ahayd dhulkii injineerada iyo wasaaradda hawliyaha guud iyo qorshaha la soo dhameeyay la dhameystiray inaan ku wareejino dawladaha hoose si ay u bixiyaan dhulka oo dadweynaha loo siiyo risooyin cajiib ah igu dhacay hadda ka hor oo dhul ku saabsan nin odayaa ii yimid oo aad u ooyay oo la dulmiyey markaasaan la ooyey يعني إنك دعنا إلى الظلمية تذكي إلى شو هوستي كود قصليان قبل ما يظهر أي تبد سداد بوس بشيء تضوى مركي حاران نقطة بينتين نقطة كيس ده هي كنا نكون إلى هاي بار دولة دا وكيل هو دولة دا بحنيسة يا سيا لمن أحياها هذا إنه يسوي هذا الوقت يكون يسوي هذا وعلى قاعد وحلا وحلا أقوم أنا هذا قدومي شيء جاي إنه حلا دول وحلا قاضية حلا حقيقي لا ما هي خصوصي أنت كوضع الله هل تبي يصير دتك الشرعية دوقاتان دتك أقوم بدل دتك قرب شوكته وحلا حلا سمي أونلاين كل البلاد دول كلام يصير الحين هذا وحن كله ساعد الدلال كمركي اللي وجهه سركانكم من التوكتي من الدلعسية نقطة من اللي من شغال الله سيكونيو نقطة قالوا وزير حتى عندي نقطتان يا وزير صامين دلالك كل أيام كلها هنا الليلة والدولة النمدي الصومالية شنتي سنة هذا لحد سنة لصور ضعف بقولك قبل كجداء كلمات سيدات بقولك بأمني أنا نقول الدولة الصومالية بالبرز ساكن وليش أنا يا هدي أنت دلال قال أنا صلح مولو عقبته سال الله هنا يا ما لنا الحراسي أنا هيسكوديس مهم سن ما أنت ديار تاي مدحوينها waan garab istaaganahay taakulada uga baahanahay inuu ballan qaado inuu sameeyo siyaasiga Soomaaliya mustaqbal siyaasadeeda kala hor war shacabku ha ku qiimeeyeen dagaalka shabaab qofku waxa uu ka qabtay salaanka bacdi waxa aad muhiim noogu amaanta waxaan ka hadlaynaa inay tahay naqshadii magaalada Kismaayo shaki kama jiro deegaanada Soomaaliya waan garanaynaa sida hadda xaafadda shaqaalaha iyo xamar buurkarooli iyo xaafado u dhisnaayeen dhulkii tareedishada ahaa iyo 11 ahaa iyo ciriiriga deegaanadu ay ahaayeen waxaas la wada garanayna maanta markaa maalintii ugu horeysay milestone Nairobi ku kulanno injineernu waxaan kala hadlayay waxay ahayd waxaan u baahanahay naqshad inaan helo iyagoo markaa gaaris ku mashquulsan taasaa waxay keentay inaan kaga heshiino bal inaan Kismaayo ka bilowno naqshad deegaanada kalena aan gaarsiino waxaad moodaa riyadaasi inay soo caddaanayso oo maanta sharaxaadda uu bixinaya injineerku haddaan sideeda ugu dhaqanno wax badan bay isbedelaysaa taraysa muhiimadda ay leedahay naqshaddu waa inay magaalada u muuqato magaalanimo waxaa soo raacay markaan hay-adahan iyo naqshaddan iyo ka waxaynaynay in la adkeeyo hay-adaha sharciga horta dhul yaale ilaahay baa iskale yaa dhul mas-uulka dowlad baa mas-uulka oo iskale Soomaaliya xilligay burburaysay inta hadda suldaanka iyo qoladii waaweyneed baa garanaysa annagu waan yareedaynay waxaa culays badani ka jiray wax la yidhaahdo goofaf xamar baan anaadu garanaya iyo soo sharciye askartaa ugu badneed waxaa goofafka sharciyeyntooda dhex geli jirtay 18 boos 36 boos haaf qaado haaf soo sharciye kan yeel taasaa waxay keentay maanta magaalada Kismaayo markaad kor maraysa diyaaradda taqriiban garoonka 40 kilomitir haddaad kor sii fiiriso xayndaabka yar dayrka yar qalqalooca wareegsan iyo warta yar ka qodo waad la yaabaysa meel seelo ilaahay beer ugu tala gelin baa la oranay beerteedii baa waxa soo dhan ma yazal Allah bi'amin sultan dhulka dawladda iskale dawladda bixinaysa waxay siinaysaa cid mu'aalka oo mudan beer meeshii loogu tala galay hadda ka hor baa wasaaradda beeraha waxa ka joojiyay meel caraseel oo dibir oo fulayga ka baxay inta la ekaan waayay yaa waxay u soo qoreen warqad waa dhul beereed ma noqon kartaa sifa sharciyana maaha sifa jirtana maaha
waxaa haddana ugu badatay in ciidanka intii la isticmaalo askartu ay noqoto sidii dowladdu ay ku burburtay inay iyadu shaqada qaybta ugu badan gasho oo meel walba goof iyo askari uu daba taagan yahay lagu waxaynayo waxaa ilaahay mahadiya maanta naqshad baan samaynay waxaa aan daafuray waxay ahayd dhulkii injineerada iyo wasaaradda howlaha guud iyo qorshaha la soo dhameeyay la dhammaystiray inaan ku wareejino dowladaha hoose si ay u bixiyaan dhulka oo dadweynaha loo siiyo wixii maanta ka horeeyey goof iyo dhul iska jiita dadka ugu ayaanka daran waa dadka qurbo joogta oo waxaanay arkayaan nin buu la soo xidhiidhi qaraabadiisa wuxuu leeyahay dhulkaasaan rabaa inaad dhul iiga gadagsmaayo meel aan leeyahay buu soo gadi wuxuu odhanaya dhul baan kuu gaday uga gudbinayo maalin dambuu qiimo fiican bay heli kii uu lacagtiisa ugu gaday iyo mar labaad wuxuu leeyahay haddaan kuu gaday intaasaan kuuga helay isagaa dib uga sii gaday dadka dulman ee la ciqaabo ee hantidooda la bannaystay waa dadka dibadda jira taa waxaan rabnaa marka application formka ama formka dhulbixinta intuu meeshiisa isagoo joogo ka soo buuxiyo marka D2da la siiyo online uu ku dalbado lagu siin karo uu garan karo isagoo Seattle Washington jooga ama isagoo jooga Ottawa ama Australia isagoo jooga inuu garan karayo dhulka la siiyey iyo meeshuu ku yaallo gradekiisa oo isagoo safar ku yimid uuna cidna u baahanin intuu taxi qaato oo odhanayo waddada magacii hadda loo sheegayo wadda hebli iyo wadda heblaygi halkaasaan rabaa oo meeshiisa istaagi karayo taas muhiimaddan kalena waa midaas oo dadku ay helaan xuquuq iyo dhul ay access u leeyihiin oo ay u tegi karaan oo ay arki karaan oo una dilaal u baahnayn inuuna qofku dilaal waa inuu qofku dilaal ka xoroobo baro dhibkana haystaay dilaal baa burburiyey shalay dowladnimadii maantana weli dilaalku uu la jooga oo ciidanku ay ka dhaxbaxaan dhulka waxa ugu muhiimsani askariga qoriga wataay dariiq uu ku geli karaa ma jirto wuxuu xaq u leeyahay meeshuu degayo laakiin intii la soo kaxaysta ama uu si kala yeelo askari xaq uma laha qabiilo xaq uma laha dhul inay sheegtaan askarina xaq uma laha qabiilo xaq uma laha ilaahay baa le dowladdaa wakiilugaa dowladdaa bixinaysa yaa sii yeelan liman axyaaha haddaad noolaysan weydo waqtigii ku dhisan weydo waa lagaa qaadi inaad dhiitu hoosta ugu dhigato ood sidaa yeesho kuwa mulkiyaysid waa lagaa qaadi beri dhulku waa in la ogaado macnaha uu loo jeediyo waxaan uga jeedno dhulkaa maanta la daafurayahay waa in dadweynaha la siiyo waana loo siman yahay cadaaladda hoosteeda waxaan intaasoo juhdiga u gelinaynay wartareedishana way naga soo dhammaatay waddo go'doonoo xidhanna way naga soo dhammaatay waxaan rabnaa jidad in la dhiso waxaan rabnaa cabir dhul in la bixiyo waxaan rabnaa dadku dhul nafisa inay helaan waxaan rabnaa meelaha qaarkood inaan dadka danleyda ah ee u baahan dabakaayo yar noloshii waxaysan tahay waa in xaafadaha qaar ay degaan xaafadaha qaar dadka isugu faantada guryaha sababtoo guri dheer intuu dhisto cariish inaad hoos dhigato oo adiga iyo reerkaagii iyo cawradaadii korkaaga la kor taagan yahay macno kaley samaynaysaa taasay ahayd shalay middaan kala hadlayay maamulada in standardka dadku xataa ay kala degayaan ay kala duwanaato dadku bal la israaraaciyo say isu qaadan karaan asbaabaha aan tan u furayno markaa waxaa weeyaan dhulku in la ogaado sharduuda laguu qoro iyo muddada laguu sameeya dhulkaa ku yeelanaysaa haddaad isku daydo inaad jiitanto recommendation waxa ugu badanee aniga la iigu yimaadaay waa dhul iyo dacwo qisooyin cajiiba igu dhacay hadda ka hor oo dhul ku saabsan nin odayaa ii yimid oo aada u ooyay oo la dulmiyey markaasaan la ooyey yani ninka da'dan ee la dulmiyayo dadkii ila jooga hoostay ka wada qoslayaan waxaa la yidhi ku qabsa ku qadmaysid baa la yidhaha magaciisa yani dadku inay xaddaa gaadhaan waa wax kale maalintaa laga bilaabo gabadh baa iyaduna ii timid 8 boos bay sheegatay 7 markay xaaraan noqotay beenteed noqotay kii 8 hay keenaan ku war haddaad idinku isdulmidaan oo idinku aad xaqirtaan oo idinku cadaalad darro aad isku samaysaan yaad eedaysaan aan idin weydiiye
waxaan idin samaynay qaata ilaahay ugu shukriya dhulka sidii yahay loogu dhaqmo haddii maslaxada caamka ay timaado shalay guryihii dawladdu ay lahayd Kismaayo waxay ahayd mashaariicda iyo guryaha dawladdu meesha ugu badnayd arrintaa waxaan rabaa hortiina inaan uga mahad celiyo madaxweyne ku-xigeenka Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luga Dheere oo isagu ahaa qofka dekanada ugu badan ku galay dhulka dawladda arkaysa halkan aan fadhina ay koob ka ahayd ka baxa dadka ku lahaa oo dadka qaarkood ay igu soo dacwoodeen anaga reebel ahaan buu loo taarget garaynaya de qabiilkii meel kama baxayo haddii markaa ay noqoto dhulkii wardan guud weeye ama haddaa loo rabaa ama shalay buu ahaa waxa kale aad ugu sheegaysa waa soo ayaan darro kale maaha dhulkaa hadda la bixinayo khaladaadku meesha ka iman doonaan maraa inaan waxayna idinka ifiyo garsoorku waa mudlaq waa iska furan yihin garsoorku uma bannaana dhulka hadda la bixinayo inay xukunkiisa galaan ilaa sharciyadda dhulbixinta la siiyo qofka waayo hadduu garsoorku dhex galo garsoorku masaga xakama wuxuu garsoorku gelayaa mar haddii barnaamijka waa in dawladdu ay bixiso isku qabsashadu qaabkaha ku timaado laakiin dhul aan sharciyadiisiiba la bixinin dawladdiiba ayna dukumenti ka bixinin garsoorku xaq uma laha inuu xukumo ma laha xaq uma laha garsoorku waxay soo gaaraysaa marka ay noqoto warqad dawladeed in la qaato dariiqna loo sameeyo laakiin hadday noqoto in garsoorkaba laga garsoorku isaga dhulkii bixinayo yaan lagu wareerinin markaa waxaa soo raacay Kismaayo duruuf adag baa jirta noloshuna aad bay u waxaysan tahay dadku guryo la dhisay iyo kuuli iyo dhagax jabin baa lagu mashquulsanaa waxoogaa waxaa cabashada ugu badan ee timaahada guddoomiyuhu sheegaya in waxoogaa dhulka waxa laga qaadiyo waxa la raqiisiyo laamahay khusayso intay ka wada hadlaan hal la jabiyo si dadku ay sharciyadda u qaataan dadka ugu badanna dadka qurba joogta waxaan leeyahay ha loo sameeyo online ee ku dalbadaan dhulka lagu siiyo oo gacanta dilaalada ha ka baxeen dadkana ha laga farageliyo qiimaha dawladdu ay ka qaado oo sida ugu sahlan ee qofku wax ku sharciyeysan karo ha loo sameeyo madaxweynihii jamhuuriyaddu intuu tuuta qaatay oo wiilkiisii ka haystay iyo maalinba meel gaari qaraxa loo soo dhigayo dagaal buu ku jiraa siyaasiga Soomaaliga ah odayga kaaba qabiilka ah ka wasiirka ah ka dhaqanka ah kulligood sarkaalku mid walba wuxuu rabaa inuu banaan fadhiyo islaantiisii qoraayna u yeedho shaqadiisana uu iska qabto meesha uu barkantiisa soo lama garanayo miyaa madaxweynihii jamhuuriyadda oo tuuta qaba oo banaan taagan oo intaa dagaal ku socda iyo waxa aan ka shaqaynayno sawse ayaan darro maaha qofka siyaasiga ah ee mustaqbal Soomaaliya inuu shaqo ka qabta raba madaxweyne ka noqdo ee maanta carqaladda ku noqonaya hawlgalka iyo waxa lagu jiriyo waddanka in la xoreeyo u arka xasan sheekh inuu ka faa'iideeyo inuu isagu kursiga sii joogo oo ay u noqoto legacy aynan ahayn ee kursigu raba inuu sii joogo ilaa shabaab ku haysto oo dagaalkii shabaab la wada fashilinayo waxaan leeyahay madaxweyne Soomaaliya baa kugu xidhan waana ku garab taagannahay shaqadaana inaan bannaan u istaagin taagna rabno qofka siyaasiga ah ee Soomaaliga ah ee mas'uuliyad raba inuu waddankan ka sii qabto bilaa calayk bashabaab oo joogaad ku riyoonaysa inaad mas'uuliyad qabato war shalay markaan taalooyinka dhisayna ee la lahaa away geesiyadii Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan war away Axmed Gurey war gabadha xawataa ka ahayd away war away dhagax tuur taalo la dhisay away Sheekh Bashiir marka la taalooyinka maxaa looga jeeday maxay macno qola gaar aan la dagaalamayno gumaysi isku xoreynayno Soomaaliya lahayn war kuwan inxiraafka sameynaya ee diintii Ilaahay ka leexday ee saxaabadii mubashiriintii Ilaahay jannada ugu bishaareeyay dhiigooda banaysanaya khawaarijta iyo kuwa xanaanid weydiin markaan kuwan ka gaabsanayno qofka wax sheegayo maxaa dadka u sheegaysa waxaan ku tarin lahaa siyaasiga Soomaaliga waliba qolada qurba joogteen waxba ka ogeyn intay biil qaadato hadana noqonaysa intaa u imanaysa adar ama Starbucks-kiina hadda waa la isla bartay joog waagii Soomaaliya la qaxayay baan gaaris tagnay bala fakaada la yiraahdo Soomaaliya laga aqoonin baan baran waagii daba qolo kale Starbucks bay noo keentay
هذا تيك توك حيالها هذا قلنا ندوي ويانا قرنين محل إلى باشن السوشيال ميديا عيان كبرها بالشد يا عيان وحاس هذه الدولة النماذج صور مات أن كنا قلنا أن قرب استعمل الدولة النماذج أن مدحوينه ما ودك كتير حالات قال إنه ودك كتير أن ودي أرجعون ريت شو بلان وحاربنا إن نسكت الشرنا ودقال الجو والدولة النماذج الصومالية شنتي سنة هذا لحد سنة لصور ضعف بقولك قبل كجداء كلمات سيدات بقولك بأمني أنا نقول الدولة الصومالية بالبرس ساكن وينش أنا يا هدي أنت دقال قال أنا صلح مولو أقبته سأل الله هينا يا ما لنا الحراسي أنا هيسكودس مهم سن هذا هاي وين تكون بابس هدي دولة النماذج الصومالية ما أنت حاسس شغوح الصومالية شلون يساوي قدام بي ما أنت ديار تاي مدحونا أنا وقرب استعجلنا هاي تاكلوا على ربعنا هنا وبلغ هذا إنه صومالي سياسي الصومالية مستقبل سياسة هذا كلام والشعب كو قيميين دجالك شباب قفك وحا وكقبتي شعب كو قيميين مدحوينها بنانك تاغي أردية قارية قرحة الله دقيو دنت أوليها إنay tahay legacy uu ka tagay inay nahay Soomaaliya oo xor oo ninka ka dambeeyay askari Amazon uu ilaalinay wiil Soomaali uu ilaalinay gurigiisana uu joogo hiskooda faraha badan iyo dhaxanta badan la dhigayana laga qaado meesha aan ogaano wadanku inuu xaalad dagaal ku jiro madaxweynaha hadda waxaan ku leeyahay saacadda dagaalka markii lagu jiro sarkaalku mid la toogtiyo mid la dilacsiyo noqdaa mid la eriyo mid shaqada loo sii kordhiyo noqdaa golaha wasiirada xataa haddii ugu noqotaan yaa wasiir oo saameyn dagaalka kule yaan ku lahayn hal la yidhaah oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare intay dib uga fakeraan wasiirkan aad qaadanaysaa muxuu dagaalka kusoo kordhinaya teenana waan ka bilaabaynaa wasiirro badanoo halkan joogaan dhaqdhaqaaqi karayn hadda waan ka takhallusaynaa waxaan leenahay yaa dagaal geli kara nin walba intuu saameyn ku yeelan kariyo wuxuu dagaal ka tari karo ku qiimaysnaanayaa kuma qiimaysnaanayo intuu sharaxaad iyo socsocod iyo isqalqaloocin uu samayn karay aan ku talagalna middaas aad iyo aad baad u mahadsantihiin dagaal buu waddanku ku jiraa aan ku talagalno aan taa qaadano aan u diyaar garowno